عليكم أصحابكم ميل باجوكتان magacaygu waa maax kaasaan doonaya maanta inaad la shargareeyo videogan 5 qaabood hadii aad doonayso inaad lacag ka samayso si dhab ah cryptocurrency-ga markaad joogto ama space-kaas inaad macluumaad badan inaad og tahay 5 qodoboodna ka saacidi doonto inaad lacag ka samayso cryptocurrency. Intaan u gudbin ka hor 5taas qodobood waxaan ka codsanayaa inaad like saartaan videogan sidoo kale subscribe dhahdo haddii markaas aad tahay qof cusub channelkani si aad macluumaad badan la xiriira cryptocurrency style-ka aan kala socoto. Marka haddaan guda galno 5 qodobood waa 5 ways to make serious money with cryptocurrency. waa 5 qodobood ka saacidi doonto inaad lacag ka samayso marka la joogo cryptocurrency. 5taas qodobood waxaa number 1 ka ah never buy something that does not exist. Ha iibsanin weligaaga wax markaas aanan jirin. Micnaheedu waxa waaye coin markaas aanan jirin ama sidoo kale haddaad malgishanaysana kuu sameeya mining-ka sameeya ama markaas cryptocurrency-ga qoda labadoodaba markaad fiirinayso ha iibsanin coin markaas aan la aqoonin ama markaas aanan jirin. micnaheedu waxay tahay markaad doonayso inaad fiiriso waa inaad ka fiirisaa marka la eego investment-iga ama aad maalgashanayso mining-ka qolooyinka sameynaya markaas qodaya cryptocurrency-ga ninka leader-ka ka ah sidoo kale CEO-ga haddaa markaas aanan aqoonin ka mid yahay team leaders-ka dadka hogaaminayo investment-igan ama coin-kan sidoo kale inaad ka fiiriso ma leeyihiin product ma leeyihiin ama service markaas ay qabanayaan. haddaynan lahayn product business-kaasi ma sii socon karo for the future ama for longer term 5 years 10 years oo kale ma sii socon karo. sidoo kale team leaders-ka concept-iga ka dambeeya coin-kan ama investment-iga muxuu yahay adina dhankaas ka eegto. number 2 waa inaad ka fiirisaa sidoo kale volume-ka waxa waaye mugga markaas ay leeyihiin sidoo kale trade-ka ay sameeyaan maalintii. micnaha trade waxa waaye isbedelada markaas ay ku sameeyaan oo trade-ka dhacaya maalintiiba ah waa inuu yahay good health micnaheedu waxa waaye ama good wealth. waa inaad ka fiirisaa dhaqaale fiican inay trade-ka ka sameeyaan maalintiiba ugu yaraan 1 milyan iyo wax ka badan oo markaas trade maalintiiba uu sameeyaa coin-kaasi. sidoo kale qodobka 3aad waa inaad ka fiirisaa coin market cap-ka waxa waaye waa meesha ay ku midoobeen industry-ga oo cryptocurrency ama coinada markaas digital-ka ah ay ku midoobeen. coin market cap waa tagaysaa waxaana ku midoobay dhowr coino markaasi coin walba markaasi suuqa yimaada public ah meesha laga eego waaye. sidoo kale waxaa listiga ku jira 500 600 more than coin ku jiro laakiin coin-kaas industries guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 21 billion ayuu gaaraa industry ahaan mid markaas xoogan waaye oo coin walba iska register-gareeyo meeshaas marka waxaa lagu ogaadaa dhammaan coinada oo dhan. marka waa inaad ka fiirisaa marka midka aad maalgashanaysa hadday tahay coin market cap-kaas hadduu yimaado listiga waa inaad ka fiirisaa haddii coin-kaasi uu leeyahay coin markaasi market-ka ku leh aad ka eegtaa horta kow aadaa website-ka linkiga hoos aad ku arki doonto coin market cap kadib waxaad kasii aadaa market waxaa kaloo kusii dhufataa circulate supply. sidoo kale circulate supply wuxuu ku sheegi doonaa coin-kaasi guud ahaan maalintiiba inta markaasi soo dalbanaysa circulation wareega uu sameynayo maalintiiba. economic ahaan marka la joogana waxaa laga fiiriyaa laba dhinacood. dhaqaale ahaan marka la joogo labada dhinac waxay kala yihiin in demand iyo supply uu jiro. demand waxa waaye dadka markaasi baahi u qabo coin-kan maadaama coin-kan uu suuqa yimaado laga yaabo inuu problem uu xalinayo ama sidoo kale uu faa'iido u leeyahay dadku marka way dalbanayaan markay dalbadaan waxaa imaanaya waxa la dhahayo supply.
supplygaas marka waa circulation maalintii uu sameynayo dadka ay soo dalbanayaan haddii markaasi dadka dalbanayo ay badan yihiin waa markaasi qiimaha markaas uu leeyahay coinkaas suuq ahaan marka loo eego ama markaasi dadka tradeka sameynayo haddii marka supplygiis uu gaarayo billion uu gaarayo waxa waaye faa'iido ayuu leeyahay sidoo kale coinkaas laga rabo marka inaad si fiican u fiiriso aana ugu faa'iidaysato sidoo kale waa inaad ka fiirisaa marka loo eego low circulate supply dadka markaas dalbanaya haddii circulate supplygiis aad u leeyahay aadana markaasi aad iibsato laga yaabo 6 months kadib inaad faa'iido fiican aad ku hesho aadana markaasi dhinacaasina ay tahay meel aad u fiican inaad markaasi ka eegto qodobka afraad buy the rumors sell the news micnaha waxaad iska iibisaa markii newsku yimaado newsku maxaa lagu leeyahay bitcoin qiimihiisa pricekiisa sare ayuu u kacay waxaa ku ogeyd 6000 ku ogeyd wuxuu tagay 7000 ay 1 month kadib waxa lagu leeyahay wuxuu tagay 10000 after 1 month kadib wuxuu tagay lagu leeyahay 11000 waa inta markaas aniga goobjoog ahaa marka intaas marka aad aragto newska aad u gato waxaa laga rabaa marka maadaama dadku ay iska sii iibinayaan xilligaas waa xilligii markaasi newska oo jiro oo warbixinadaas ay jiraan waxaa samaysaa iska sii iibi adiga iska sii gad inta markaasi profit ama faa'iido kugu jiro gado waxaa reebataa marka oo cagsigiisa noqonaya marka buy the rumors markay newskaasi uu dego oo dadkii wada gataan waxa waaye marketka waxa ku imaanaya marka the rumors hoos u dhaca maadaama economic ahaan marka loo eego ama cryptocurrency loo eego demand iyo supply uu ku xiran yahay laga yaabo haddana in qiimihiisu uu hoos haddana usoo dhaco priceka oo iyagana reasono badan ay keeni doonaan oo video kale aan doonayo in la share gareeyo the rumorskaas markay imaadaan marka ayana waxa loo baahan yahay markuu coinka qiimihiisa haddana oo hoos ugu soo dego kale tusaale kale wuxuu ahay 15000 uu ahay uu imaaday 16000 dan uu kasii tegay hoos u soo dhacay wuxuu noqday 8000 oo kale noqday 16000 oo noqday wuxuu kale noqday 5000 oo noqday 6000 oo kale waa xilligii marka adiga maalgashanaysa 6000 aad ku ogeyd marka xilligaasi marka maadaama faa'iidada aad la baxday haddana intii markaas adiga ugu talgashay haddana maalgasho waa xilliga hoos uu joogo taasoo markaas kuu suurtagelinaysa in haddana marka labaad markuu qiimihiisa ama sare u kaco aad faa'iido kale aad ka samayn karto okay qodobka shanaad waxa waaye loop waxaa fiirisaa cheapest coinka markaas ugu raqiisan fiiri coinkaas sababta oo fiirinaysa maxay tahay waxaa ka fiirinaysaa haddii uu markaas marketka uu soo galo coin markaasi cusub oo sidoo kalena oo waxaa kaloo ka fiirinaysaa meelaha laga fiiriyo waxaa ka mid ah coinkaasi demandigiisa supplygiisa ayaa ka fiirinayo iyo sidoo kale circulate supplygiisa waxaad tegi doontaa marka labo jiro oo laga fiiriyo coinada markaas haday imaadaan suuqa sidoo kale laba trade ugu weynaa jiro waqti xaadirkan video la share gareynayo haddaan ka hadlayo oo ah Binance sidoo kale haday imaadaan Binance ayaa tegaysaa kadib marka inta markaas u baahan tahay ka iibsane waxaana ka fiirinaysaa markaas coinka maadaama cusub yahay sintiyaal laga yaabo in marketka ku imaado sintiyaal markuu yahay iibso markuu pricekiisa hadda waxa laga yaabaa markuu ahaayo kale 0.8 cent oo kale markuu ahaay inaad iibiso laga yaabo marka inuu qiimahaas uu ka sar kaco oo tago kale $5 oo kale oo tago waxa laga yaabaa marka markuu senti ahaa gadatay 0.8 iyo markuu 5 tago aad dareemaysaa farqiga u dhexeeya ugu yaraan waxaa faa'iidaysaa $4 $5 kala faa'iidaysaa haddii marka konton aad iibsatay waxaa laga yaabaa marka kontonkaaga oo 0.8 lagu dhuftay markuu pricekiisa $5 uu tago waxaa waaye waxaa kusoo baxaya
qiimo markaasi faa'iido aad u fiican. Marka shantaas qodobooda laga fiiriyaa markaad doonayso inaad maalgashato ama aad doonayso inaad ka faa'iidaysato habeenka markaas sameeya mining ama cryptocurrency. Guys, haddii videogan aad ka faa'iidaysatay oo ku cajab geliyey, please subscribe youtube channelkayga haddii aad tahay markaas qofka cusub, sidoo kale like ii saar haddii aad